السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتك وحرن جنال كمركز السود واضح أدي هذا ومهتنتهين مقال كانوا حربائنا لدي كل وذاقه دولة إيران وديدي dalabkii ay dowladda Mareykanku u gudbisay oo ay doonaysay in lagu soo gabagabeeyo dagaalka ku dhawaad muddo bil ah hadda socda ee u dhaxeeya Mareykanka iyo waliba Iiraan. Iiraan maxay tahay qodobada ay soo bandhigtay oo ay doonayso haddii heshiis la gaarayo in la qaato 15 qodob oo Mareykanku soo bandhigayna maxay yihiin waan idinla wadaagaya haddii alla idmo. Qodobka kale oo aan ku eegayo muuqaalkayga waxa uu yahay guddiga baarlamaanka gobolka Minnesota gaar ahaan aqalka wakiilada ayaa isniintii waxa ay kulan ka yeesheen lacagta kaashka ee faraha badan ee labadii sano ee la soo dhaafay laga dhoofiyay airportka magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul ay wadaagaan isla markaana lacagtaasi waa sharci dadku marka ay qaadanayaan laakiin ma jirto wax sharci ah oo dowladda federaalka iyo gobolka Minnesota ay ka soo saareen. haddaba labadii sano ee la soo dhaafay lacagaha kaashka ee ka dhoofay Minneapolis airportkaasi intay la eg yihiinna sidoo kale waan idinla wadaagaya. bal waxaan ognahay madaxweyne Trump in ku dhawaad 3 maalmood ee la soo dhaafay ba uu dhahayay wadahadal ayaa noo socday Iiraan oo la doonayo in lagu soo gabagabeeyo dagaalkan hadda ku dhawaad muddo bil ah labada wadan u dhaxeeya. Trump waa kan guul sheeganayo oo dhahayo hogaamiyaashii waan dilnay, ciidamadoodii badda waan burburinay, gantaaladooda warshadahay ku samaysanayeen waan baabi'inay, gantaalada gawaaridii ay ka soo tuurayeen waan baabi'inay. sidaas darteed waxa uu yiri dagaalka waan ku guuleysanay. laakiin sida muuqata Iiraan wali waa ay dagaalamaysaa. marka Mareykanku 15 qodob ayuu Iiraan hordhigay oo uu doonayo in ay aqbalaan, laakiin Iiraan waa ay diiday iyaduna 5 qodob ayay soo bandhigtay iyo waliba qodobo kale oo la socdo. marka Mareykanka qodobadiisa haddii aan ku hormaro, Mareykanku waxa uu Iiraan ka dalbanaya marka hore oo 15 qodob kamid ah in dhammaanba goobahooda nuclear-ka ah ay baabi'iso oo nuclear dambe aysan yeelan. Trump sida uu sheeganayo waa ay ogolaadeen arrintaasi, laakiin Iiraan ma muuqato in ilaa iyo hadda ay ogolaatay iyo inaysan mar dambe dib u bacrimin karin uranium-ka laga sameeyo nuclear-ka kuwa ay haysatana sidoo kale Mareykanka ay ku soo wareejiso. bishii 6 ee sanadkii hore markii Mareykanku uu duqeeyay goobihii nuclear-ka ee Iiraan ee 3 Fordow, Natanz iyo Isfahan, waxa la leeyahay uranium-kii ilaa ay hadda burburka ay ka hooseeyaan. Iiraanna ma aysan soo saarin, Mareykankuna ma tagi karo. marka Mareykanku waxa uu doonayaa uranium-kaasi in Mareykanka ay ku soo wareejiso Iiraan, waa dalabaadka uu dalbanayo. sidoo kalena in gantaaladooda ay yareyso gaar ahaan kuwa ridada dheer. Mareykanku waxyaabaha uu dalbanayo ku jirta. sidoo kalena in ay damaanad qaado marinka Hormuz in si nabad ah oo xur ah ay maraakiibtu ay ku soo mari karaan. sidoo kalena in ay gabi ahaanba joojiso taageerada ay siiso kooxaha ka dagaalama bariga dhexe, gabi ahaanba in ay joojiso. waa waxyaabaha Mareykanku uu ka dalbanayo dowladda Iiraan. sidoo kale Iiraan marka dalabaadkeeda hadda Pakistan ayaa dhexdhexaadinaysa labada wadan oo safiirka Mareykanka u qaabilsan bariga dhexe Steve Witkoff iyo waliba wiilka qaba in gabadha madaxweyne Trump oo la yiraahdo Jared Kushner iyo madaxweyne ku-xigeenka JD Vance ayaa ku lug leh arrintan dhinaca Mareykanka wada xaajoodka. laakiin Iiraan waxay leedahay horay ayaa godkaasi 2 jeerna loo ka qaniinay oo dagaalkii 12 maalmood iyo midkan hadda socdaba wada xaajood ayaa nala ku mashquuliyay, kadibna waa nala soo gaaday, laakiin hadda kadib nalama gaadayo oo nagu difaaceena markastaba waan ku jireena. marka Iiraan iyaduna 5 qodob ayay soo gudbisay. TV-ga wadanka Iiraan ayaa laga sheegay 5 qodob oo ay doonayso in dagaalka lagu gabagabeeyo. horta waxaa kamid ah in la joojiyo dagaalka ama gardaradan lagu soo gardooraday, isla markaana la joojiyo dilka lagu hayo madaxdooda ama kuwa dowladda ahaadaan ama kuwa militariga ha ahaadaan. waxaan doonaynaa ay yiraahdaan sidoo kale security guarantee in loo damaanad qaado inaan mar kale nala soo gaadaynin oo aan nala soo weeraraynin. sidoo kalena waxyaabaha kale oo dowladda Iiraan ay dalbanayso ayaa waxa ay tahay in la soo gabagabeeyo in dagaalka sidoo kale la joojiyo lagu hayo kooxaha iska caabinta ee Iiraan ay taageerto oo iyaguna gobolka bariga dhexe ka dagaalama. kooxahaasina dagaalka lagu hayo hala joojiyo ay leeyihiin maadaama ay yihiin kooxaha wax iska caabinta ee Iiraan ay taageerto. Iiraan sidoo kalena waxyaabaha ay dalbanayso waxa kamid ah marinka Hormuz in iyada loo madax banaaneeyo. marinka Hormuz waxay leeyihiin wixii maraya iyo wixii ka baxayaba
innaga ayaa u madax bannaan oo ogolaanayno arrintaasina waa ay leeyihiin sidoo kalena waxay dalbanayaan magdhow khasaarihii gaaray waa qodobka shanaad oo Iiraan ay dalbanayso waxyaabaha kalena waxaa ka mid ah oo ay dalbanayso inaan wax aan shuruudaha lagu xiri karin gantaaladooda nooca ay rabaanna ay haysan karaan iyo sidoo kalena waxyaabaha ay dalbanayaan waxaa ka mid ah in la xiro dhammaanba saldhigyada Mareykanku uu ku leeyahay wadamada khaliijka iyo sidoo kalena in laga qaado gabi ahaanba cunaqabataynta saaran waxyaabaha marka Iiraan ay dalbanaysana waa kuwa marka labada dhinac waxay u muuqataa mid waliba in uu shuruudo adag wato si dagaalkan loo soo gabagabeeyo marka ma lagu heshiin doonaa sida muuqata mid waliba shuruudihiisa ayuu ku adkaysanaya marka madaxweyne Trump ayaa shalay markii la dhaarinayay wasiirka cusub amniga gudaha hadal ka jeediyay halkaasi waxa uu yiri in hadda wada hadal ayaa noo socdo Iiraan 15 qodob ayaan u gudbinay waxaan isleenahay hadda dadkii wanaagsana ayaan la hadlaynaa inkastoo Trump uu yiri dhamaanba madaxdii waan baabi'inay hore uu sheegay laakiin hadda wuxuu yiri right people ayaan la hadlaynaa laakiin waxa la yaab noqotay markii Trump uu shalay yiri hadiyad weyn ayay Iiraan noo soo dhiibtay oo lacag fara badan ku fadhiso hadiyadaasina waa na soo gaartay mana doonayo inaan idinla wadaago oo warbaahinta ku yiri hadiyadaasi maxay tahay laba wadan oo dagaal ka dhaxeeya in mid uu yiraahdo wadankii dagaalku uu nagala dhaxeeyay ayaa hadiyad qaali ah ay naga soo gaartay waana waliba na soo gaartay waxay noqotay arrintaasi arrin la yaab leh waxaana la leeyahay arrintaasi maxay tahay marinka Hormuz ayaa maraakiib Mareykan loo ogolaaday oo shidaal sida arrintaasi wali lama oga Trumpna waa uu diiday inuu faahfaahiyo marka calaamad su'aal taagan waaye oo Trump uu sheegay uu leeyahay Iiraan hadiyad qaali ah oo lacag fara badan ku fadhisa ay noo soo dhiibtay waana na soo gaartay bal Trump hadalkiisii shalay wax yar ila daawada We're actually talking to the right people and they want to make a deal so badly. You have no idea how badly they want to make a deal. We have really regime change. You know, this is a change in the regime because the leaders are all very different than the ones that we started off with that created all those problems. They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. And it was a very big present worth a tremendous amount of money. And I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant prize. And they gave it to us, and they said they were going to give it. So that meant one thing to me, we're dealing with the right people. dhinaca kale gobolka Minnesota waxaan ognahay 4 sano u dambeysay musuqmaasuq fara badan ayaa jiray lacag fara badan ayaa la xaday oo arrimaha ceerta loogu talagalo barnaamijyo kala duwan arrimahaas inay socdeen haddaba aqalka hoose ee baarlamaanka gobolka Minnesota gaar ahaan guddiga musuqmaasuqa u qaabilsan aqalka wakiilada ee baarlamaanka gobolka Minnesota ayaa isniintii waxay yeesheen kulan lagu dhageysanayay lacagaha kaashka ah ee faraha badan ee airportka magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul ka dhaxeeya ka dhoofayay labadii sano ee la soo dhaafay oo dadku ay kala baxayeen haddaba gudoomiyaha guddigaasi Kristen Robbins oo Republican ayaa waxa ay dhageysatay booliska airportka oo arrimahaasi ay wax ka weydiisay waxa la yaab leh in gobolka Minnesota 25 sano ee la soo dhaafay lacagaha ka baxayay ku dhawaad ay ahaayeen 70 milyan oo dollar laakiin labadii sano ee la soo dhaafay 2024 iyo 2025 lacagaha ka baxay haddii aad maqasho waad la yaabaysaa 2024 waxa ka baxay 343 milyan oo lacag kaasha ayaa airportka Minneapolis iyo St. Paul laga dhoofiyay 2025kana 350 milyan ayaa laga dhoofiyay marka waxa ay guddiga la dagaalanka musuqmaasuqa ee aqalka wakiilada ee gobolka Minnesota ay leeyihiin arinta waxa loo baahan yahay gobolka iyo dawladda federaalkuba inay sharci ka soo saarto horta dambi ma ahan qofku lacag kaasha inuu airportka kala dhoofo laakiin haddii 10,000 ay dhan tahay amaba ay ka badan tahay waxa jiro hay'adda TSA oo dadka hay'adda hadda shaqo joojinta ku jirta waaye dadku markay airportada ka dhoofayaan baara iyaga iyo boorsooyinkooda form ayaa jira dawladda federaalka ay leedahay oo qofku inuu buuxiyaa lacagtan in uu wato laakiin meesha uu ka keenay lama weydiinayo marka waxay leedahay Kristen Robbins oo guddigan musuqmaasuqa ee aqalka wakiilada ee baarlamaanka gobolka Minnesota madax ka ah waxa la doonayaa lacagtan bal in la ogaado halka ay ka timid mise xiriir ay la leedahay lacagihii musuqmaasuqa ee gobolka Minnesota laga musuqmaasuqay lacagtan mar haddii wadanka ay ka baxdo waa sharci mana la soo celin karo marka arintaasi waxay tahay hadda waa tii la dhahay Soomaaliya iyo Kenya iyo lacag fara badan lagu maalgashtay marka arintaasi ayaa waxay tahay mid hadda guddigan ay ku daba joogaan qofku marka hadda waxa jirtay in wasiirka maaliyadda
uu bishii January soo saaray amar ah lacagaha xawaaladuhu ay dirayaan ama sidoo kale airportka qofku uu qaadan karo markii hore 10,000 ayay ahayd qofku haddii uu dirayo inuu sheego halka uu ka keenay ama uu form buuxiyo laakiin hadda haddii 3,000 xitaa ay ka badan tahay oo qofku airportka uu kala dhoofayo waxaa loo baahan yahay in uu formkaasi buuxiyo isla markaana sidoo kalena haddii xawaalad uu ka dirayana ay sidoo kale tahay marka airportka Minneapolis iyo St. Paul waa airportka 16aad ee ugu weyn Mareykanka haddana lacagta labadii sano ee la soo dhaafay ee cashka airportkaasi laga dhoofiyay waxa ay ka badan tahay lacagaha guud ahaanba airportada Mareykanka laga dhoofiyay marka la eego 2024 oo 343 milyan iyo sidoo kale 2025 oo 350 milyan ah arintaasi waxay tahay marka arinta hadda ay doonayaan in guddiga ama baarlamaanka ama gobolka Minnesota sharci uu ka soo saaro qofku haddii lacag 10,000 ka badan amaba xitaa hadda 3,000 sida wasaaradda maaliyaddu ay leedahay in la ogaado lacagtaasi qofku halka uu ka keenay oo foomka lagu daro qofku uu buuxinayo lacagtan halka uu ka keenay si loo ogaado lacagtaasi inay tahay qofkan inuu si sharciya ku shaqaystay ama inay si sharci darro ah ay ku soo gashay haddaba waa tan gudoomiyaha guddiga musuqmaasuqa u qaabilsan aqalka wakiilada ee baarlamaanka gobolka Minnesota Kristen Robbins oo ka hadlaysay dhageysigii ay arrintan lacagaha kaashka ee airportka magaalooyinka Minneapolis iyo St. Paul ka dhoofaya dhageysigii ay isniintii ka yeesheen waxyaabaha ay ka tirto. We hear all these reports of money leaving the airport. Why doesn't the state stop this? For context, we have the 16th largest airport. That number, 350 million leaving our airport in cash, is higher than the cash leaving any other airport in the country. That's why it's so important to catch it on the front end, because once it's laundered, it technically may look legal. Yes, we're hoping to get some changes in federal law. Absolutely, Chair Elkins. We are an outlier as a state in terms of the amount of cash leaving our airport. And so that is why we're having this hearing to better understand what is going on, not only at the airport, but where those funds are coming from. And are any of them tied to the fraud here in Minnesota? aad iyo aad u mahadsantiin asxaabta intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo